ishana xayba iga saaran oo yani maartay aragtida igu yar meel dheer waxba maartay kama garan kara dadka halkan tani isqabta gadiidka un baa ii muuqan gadiidka dhulka un baa ii muuqan wax kale oo aan arkin male ruux inta ay jira ma arkahay xanuunkeeda waana ishan waxa igu daran inaan saa urundido socdo qiiq dhulkan cadiinkiisa midanaan ku arki tan waa eber marar badan waxaad la kulmaysaa amaba dhagahaga ku soo dhacaya dhilooyin kala duwan oo xambaarsan culayska ay leedahay indhalaantu qof ka cabanaya indha xanuun mid leh labadii indhoodba waan beelay iyo qof kale oo kuu sheegaya inuu il beelay tii kalena halis ku jirto xanuunna daran awgeed iyo qof kale oo isna ku tilmaamaya inuu araggii ku yaraaday oo aragtida dheer amaba tadhawi ay ku adag tahay arrimahaas iyo qaar kale oo badan ayaa saldhig u ah cabashada aafooyinka haleela indhaha balse xukuumadda haatan ka arrimaysa deegaanku waa xukuumad mar kastaba u taagan ka jawaabidda baahiyaha asaasiga ee shacabka ayaa kadib markii ay ogaatay sida ay bulshada deegaanku laga maarmaan u yihiin inay helaan adeeg daaweyn oo qalleen indhaha ah oo bilaash ayaa waxay ka hirgelisay deegaanka kooxda wareegtay ee daaweynta iyo qalleenka indhaha oo qaar badan oo ka mid ah degmooyinka deegaanka ka soo shaqeeyay halka degmooyinka dhimanna la rajeynayo inay waqti dhow gaadhaan waxaana waqti xaadirkan ay ka furmay degmooyinka Gurabaqaqsa iyo Guradhaamule ee ka tirsan gobolka Liibaan daaweynta iyo qalleenka indhaha oo si toos ah looga daafuray xarunta caafimaadka ee degmada Gurabaqaqsa iyadoo ka faa'iideysan doonaan shacabka labada degmo iyo nawaaxigoodaba waana kuwan shacabka reer Gurabaqaqsa iyo Guradhaamule ee ka faa'iideysanaya adeegani daaweynta iyo qalleenka indhaha oo ka warbixinaya dareenkooda iyo sida ay u arkaan adeegani waxaan loo keenay daawo bilaasha hadda waxa la yiri 9 saac soo celi waa la qalayaa qalliin in la fiiqo waxaan ku mahadinaynaa xukuumaddeena noo keentay daawada bilaashka annagoo hadda ka hor ilaa 200 kilomitir 300 kilomitir u tagi jiray halka qof daawada nagaga bixi jirtay iyo kharashka nagaga bixi jiray lacag aad u badan oo xataa aanu tagi jiray ilaa Addis Ababa ilaa Roobay aanu tagi jiray halka qof aan qaadno si soo socod ilaa aan gaadiid wayno oo 12 cisho dhaxda ku go'doomi jiray ma had waxa iska leh xukuumadda ilaah baa ma had iska leh marka labaad waxa iska leh xukuumaddeena noo keentay daawada bilaashka aad baan ugu mahadinaynaa waxa weeyaan dhaqaatiirtana waa u mahadnaqayaa noo timid ee maanta dadkan oo idin loo socda waan arkaa wax sa arag oo aan kala saaxib male waxaan baa i buuxin culimaano kitaabkii akhriskii waa ugu cuslaaday dhibkaygu waa sida ilaahay baa mahadnay dawladdeena noo soo garatay saaka waan joognaa ilaahay xukuumadda noo soo dirtay inta ilaahu noo barin waxaan ku mahadinayaa 100% dawladda noo keentay maartay daawooyinka noo keentay ama qallin ha noqoto ama yaani daawo ha noqotee waxaan ku mahadinaynaa dawladda yada takhaatiir si bilaash dadka ku daaweynayso oo dunya qaadanaynin baa ilaahay noo keenay iyo dawladdeena Allah noo daayay waxaan mahad celinaynaa dhinacooda agaasinka ka hortagga indhala'aanta ee xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Bada Ducaale iyo gudoomiyaha degmada Guradhaamule mudane Cabdi Maxamed Aadan iyo madaxafiisaadka caafimaadka degmada Gurabaqaqsa oo ka hadlaya furitaanka daaweynta iyo qalleenka indhaha ayaa sheegay in si habsami leh ugu socoto daaweynta iyo qalleenka indhaha ee ka furmay xarunta caafimaadka ee degmada Gurabaqaqsa socdaalka indhaqalitaanka daaweynta si toos ah uga furmay degmada Gurabaqaqsa iyo Guradhaamule halka adeegan waxa ka faa'iideysan doona degmooyinka Guradhaamule Gurabaqaqsa iyo nawaaxigeega oo ku jirto ilaa Jarati sida aad u jeedaan maanta health centerka degmada Gurabaqaqsa waxa ka furmay adeegii daaweynta iyo qalleenka indhaha ee labada degmo Guradhaamule iyo Gurabaqaqsa marka shacab fara badan ayaa ka faa'iideysanaya oo muddo badan aan indha lahayn oo ciyaalkooda arkin dadkooda arkin oo fara badan ayaa tuuran shacabkii labada degmo ayaa si xawli ama si xooga u soo wada qayb galay oo dhammaan way wada yimaadeen oo halkan ay joogaan maanta adeegii bay maxaa la yiraahdaa ay ka faa'iideysanayaan marka waa arin fursad aad muhiim ugu ah shacabka ku nool labada degmo oo muddada badan ku taameeyay inay helaan qaabkii indhooda loogu fiiqi lahaa waxa alxamdulillah maanta in laga jawaabay baahidii shacabka ay qabeen isla marhaantana dad badan oo ku faraxsan saaka oo rag iyo dumar bala ay saaka halkan taagan yihiin annagana waan soo dhaweynaynaa barnaamijkan waana mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa xukuumadda sharafta leh ee shacabkeeda la garab taagan had iyo jeer inay baahida jawaab degdeg ay ka bixiso waxaan waqti xadarkan ku sugannahay waa xarunta caafimaadka ee degmada Gurabaqaqsa oo ay si toos ah uga socoto adeega qalleenka iyo daaweynta indhaha oo ay ka faa'iideysanayaan shacabka degmooyinka Gurabaqaqsa iyo Guradhaamule iyo waliba nawaaxigooda
deegaankoodaba iyadoo adeegani qalliinka iyo daaweynta indhahana uu yahay mid ay xukuumadda deegaanku qorshe ahaan u qaadatay iyadoo la doonaya in guud ahaanba deegaanka laga fuliyo isla markaasina degmooyin badan oo ka mid ah deegaanka laga soo fuliyey halka degmooyin kale dhimanna la doonayo in waqti dhow markaas la gaadho iyadoo adeegani qalliinka iyo daaweynta indhahana uu yahay mid markaasi ay xukuumadda deegaanku qorshe ahaan u qaadatay maadaama uu aragu yahay waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha aadamaha isla markaasina xukuumadda deegaanka oo ka jawaabaysa baahida shacabka ay samaysay kooxaha wareega ee qalliinka iyo daaweynta indhaha oo markaas la doonayo in shacabka ku dhaqan guud ahaanba deegaanka meel kasta oo ay ku dhaqan yihiin inay goobahooda ugu gaadhaan si markaas loo siiyo adeegani qalliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ah cabdirasaaq ibraahim idaajaah telefishinka caalamiga ee Soomaalida Itoobiya iyo TV xarunta caafimaadka ee degmada Gurabaqsa ee gobolka Liibaan